askari ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Nigeria ayaa boorso ay lacag ku jirto oo cadadeedu uu gaarayo 41,500 oo dollarka Mareykanka ah dib ugu celiyay boorsadaasi dadkii lahaa. Bashir Umar waxa uu ka mid yahay ciidamada cirka ee dalka Nigeria, waxaana ka mid ahaa saraakiishii loo daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Kano waqooyiga dalkaasi Nigeria si uu amniga ay u sugaan. ciidamada cirka waxa ay sheegeen in askarigani uu roondo ka sameynayay gudaha garoonka xilli uu ku guda jiray hawshiisa shaqo, sidoo kalena uu helay boorsadani lacagaha ka buuxa oo goobtaasi taala. markii uu gacanta ku dhigay ayaa waxa uu dib u wacay dadkii iska lahaa boorsadaasi si uu lacagahooda dib ugu celiyo. sidoo kale ciidamada cirka waxay raaciyeen in Bashir la siin doono abaalgud taa oo looga gol leeyahay in saraakiisha kale ay talaabada noocan oo kala ay qaadaan. sanadkii hore bishii Agost ayay ahayd markii saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Lagos ay abaalmarin guddoonsiisay laba ka mid ah saraakiisha ciidamada halkaasi ku sugnaa, kuwa oo iyaguna helay lacag far badan dibna ugu celiyay dad ganacsato ahaa oo ay ka luntay lacagtaasi. arrintani ayaa dalka Nigeria waxay ka naqanaysaa mid aad looga hadalhayo, iyadoo sidoo kale sawirka Bashir Umar iyo warbixintiisaba aad loogu lafagurayo baraha Twitter-ka, waxayna sheegeen dadka intooda badan in ay tahay hawl aad u wanaagsan qofka helay 41,500 oo dollarka Mareykanka ah dibna ugu celiyay qofkii lahaa. waxa ay taasi ku tusinaysaa iimaanka uu qofkaasi u leeyahay.